ciidanka difaaca qaranka ayaa digniintii ugu cuslayd u soo jeediyey kooxaha magac dilka iyo magac baabinta ku haya isla markaana ka faafiya wararka been abuurka gaar ahaan howlgallada ay ciidamadu ka wadaan deegaanka Axmaarada. Colonel Geetina Saadane madaxa xidhiidhka dadweynaha ciidanka difaaca qaranka oo warbaahinta dalka la hadlay ayaa waxa uu sheegay inay jiraan kooxo fara badan oo Facebook iyo baraha bulshada geesiya ka kuwaasoo magac dil ku sameeya ciidamada howlgallada kala duwan ka haya dalka gaar ahaan deegaanka Axmaarada ayagii oo leh ciidamadii Mr X ayaa nagu soo duulay amaba waa la qabtay iyo arrimo kale oo kala duwan noocaas የከሌ ጦር ነው የመጣብህ የሚለው ስም የማጥፋት ዘመቻ howlgalladii aanu ka fulnay deegaanka Tigray ee aan la galay TPLF aan kula jirno on action ay ka socdo deegaanka Oromia iyo waliba midda hadda ka socdo deegaanka Axmaarada intaba waanu ognahay halkay sarta ku hayaan waxaan si gaar ah ula soconaa oo si dhow u ognahay magac dilka iyo magac cabbinta lagu hayo ciidamadeena halka ay salka ku hayaan gaar ahaan markaynu dib u eegno dagaalkii TPLF ee la galay deegaanka Tigray ka dhacay kii on action aan kula galay deegaanka Oromia ee ka hadda ka socdo deegaanka Axmaarada kuwaas oo leh waxa nagu soo duulay ciidamadii Mr X እነከሌ ህዝባዊ ኃይሉን ተቀላቀሉ ሆስፒታል በቁስለኛ ሞልቷል የሚሉ ብዙ ጊዜ waxay baraha bulshada ku baahinayaan inay isdagaaleen ciidanka difaaca qaranka iyo Fano waxay leeyihiin ciidamadii waxyeello loo geeyay way isdiibeen way fakadeen halkan ay galaan halkan ay ka baxeen intaas soo xira ciidan ayaanu la wareegnay magaalooyinkaasaan qabsanay waxaan lagu garaacay drone iyo diyaarado waxaan soo ridnay drone iyo diyaarado jarnaaladii ayaa kala qaybsamay jarnaal Hebel waxa uu la saftay halgankii shacabka cisbitaaladii ayaa dhaawac buuxsamay waxaa jira markaa geesiyaal Facebooka iyo baraha bulshada oo waxaan noocan oo kala u sheegay shacabka waxaanu la dagaalgalaynaa kuwa maaragtay magac dilka iyo magac binta ku haya ciidamada meel kasta ay joogaanba waxaan talaabo ka qaadanaa cid kasta oo maaragtay ciidanka ku xadgudubta meel kasta ha joogtee sidoo kale kornaalku waxa uu sheegay in kuwa maaragtay magaca Fano ku dagaalamaya deegaanka Axmaarada la wado in talaabooyin culus laga qaado isla markaana talaabooyinkaas ay sii jiri doonaan የፋኖን የተከበረ የህዝብ እሴት ስም ይዘው ururka Fano iyagoo wata magaca wanaagsan ee qiyamka ugu fadhiya shacabka Axmaarada iyagoo waliba hal meel aan ka dagaalamin waxa jira markaa kuwa magacaas wata kuwa kale maartay iyaguna Facebooka maartay ka bambuurinaya waxaan waxba ka jirin sidaa darteed ciddii ku ganacsanaysa magaca cid kale oo dul qaadan mayno waana intaas la ogaado waxaan nidhi arrin aynu annaga iyo Fano ku dagaalno haba yaratee ma jirto arrimaha la xiriira dhanka hubka iyo saanada ayagoo ku hubaysan maaragtay hubka xaafadaha ciidamada Fano markaa waxay ay qaateen hawl aan iyaga u oolin magacayna lahayna waa la siinayaa deegaanka Axmaarada mas'uuliyiintiisu waxay ku baaqeen in maaragtay baaq nabadeed isla markaana la wada hadlo waxa jira nabad lagu dhameeyo waxa jira dad aad u fara badan oo dhalinyaro oo iyagoo qaadanaya waanadii waalidiinta culimada iyo odayaal dhaqameedka dib ugu soo laabtay guryahoodii dadka caadigaana ka mid noqday በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው አሸባሪው የሸኔ ኃይል ciidamadu sidoo kale waxay talaabo ka qaadayaan jabhadda Onaag oo iyaguna shacabka deegaanka Oromia dhibaato weyn ku haya ciidankuna hawshaas dusha ayuu u ritay dagaal xoogana waa uu ku wadaa sidii kooxahaas looga sifayn lahaa deegaankaas ciidamadeenu waxay talaabada ku habboon ka qaadayaan kooxaha hubaysan ee argagixisada ah ee shacabka iyo waliba burburinaya horumarka isla markaana magacay doonaan ha wataan amaba ha aqbalaan baaqi nabadeed ee ay xukuumadda Oromia u soo jeedisay amaba yayna qaadanine ciidanku waxa uu sii wadayaa inuu tallaabo cad ka qaado annaguna waxaan aaminsanahay marka aanu awoodooda weeqno ee waxa ay isku haleynayaan oo dhan cagta marino inay iyaguba dantooda xilliga u gaadho ay qaadan doonaan baaqa nabadda haddii ay qaadan waayeen baaqa nabaddana annagu sida caadigaaba tallaabaanu ka qaadanaa waanu baabiinaynaa odayaasha baagarayaasha iyo culimadiinka deegaanka Oromia iyagoo la shaqeynaya ciidamada difaaca qaranka isla markaana waanaya dhalinyaro fara badan ay waxa lagu guuleystay in guryahooda dib loogu soo celiyo dhalinyartii xubnaha ka ururka Shane isla markaana waqti xaadirkan qaybka